isaayo wadanka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiina intii waqtigooda soo horay iyo raggii qabanqaabiyey shirkan oo maskaxda iyo wax kastaba ku bixiyey. waxaan si kale u mahadcelinayaa warbaahinta ay halkan ku haadirsan joogto oo isku dayaysaa in warka halkan laga jeediyo ay faafiso. intaan warka galin waxaan leeyahay faataha ha loo maro, faataha ha loo maro baddayna cidda hunguriyeynayso inuu ilaahay naga qabto, ragga aan dirsanayna inay waxyaab noqdaan oo hadalkooda uu noqdo lama dhaafaan. ilaahay dartiisa aan faataha u marno waa midda koowaad, waayo dhulkaas ama baddaas haddii ay sida hadda Kenya ay ku haminayso iyo inta kale la jirtoba ay la qaataan, waa khasaarada ugu weyn oo qarniga aan joogno kuwa soo dhalan doono hadhow lagu xisaabtami doona haddii aan sidaas ay baddaas ku baxdo. marka sidaa darteed waxaan codsanaa in faataha cidda maqli doonto iyo cidda inta hadda fadhidoba maanta laga bilaabo cidda dhegeysan doontaba inay faataha loo maro ragga meesha u dirsaneed inuu ilaahay garab ku siiyo sida aan jecelnahay baddaas in dib noogu soo eriyo. midda xigta waxaan leeyahay Soomaalidu waxay yidhahdaan hadal badan han ma buuxsho. su-aal ayaaba taagan aniga haggayga sida ay la tahay. sababta waxaa waaye waa ognahay maamul goboleedyada qaabka loo dhisay waa ognahay. Jubbaland maamul goboleedyadaas inay ka mid tahay shaki ayaan qabnaa. maxaa jira dheh koonfur galbeed qaabka loo dhisay waa aragnay. dowladda federaalka ayaa qeybteeda ka qaadatay, galmudug sidoo kale qeybteeda ayay ka qaadatay, hirshabeelle qeybteeda ay ka qaadatay, puntlandna waaba naga horeysa ilaahay waxaa waay mar hore ayay tashadeen kuwaas. laakiin waxaa su-aal ah dadka Jubbaland maxay ka galabsadeen federaalka, maxay ka galabsadeen ay fiirsanayaan 12 sano ama 2012 ilaa hadda hal qof sida uu rabo uu ka yeelayo, dowladdana ay fiirsanayso, caalamkana u saabinayso sababta saasakay ku dhacday. waxaan rabaa dowladda inay naga jawaabto iyo caalamka sidoo kalena naga jawaabo. midda ugu dambeysa aad ogtihiin in ay ninkii yiri 3 qofood hali ii keeno, mid baan la baxaya oo si qarsoodi aan ahayn warfaafinta iyo meelahaas dhan aska faafiye, isla markaasna caalamka iyo maxaa la yidhahdaa dowladda aan isleenahay oo ka mid nahay inayna arrintaas waxba ka qaban. ilaa haddana dadka Jubbaland dhibkaas ay ku jiraan 2012 ilaa hadda waa ogtihiin dhibkaasaa loogu jira. 2012 bilowgiisna waa ogtihiin Addis Ababa in laga soo amray oo la yidhi sidaas waa inuu sidaas la yeela. ugu dambeyntiina baarlamaankii Soomaaliya 2012 uu isku dayay inuu u xiliyo reer Jubbaland in nin madaxweyne ah xilligaas joogay inuu tagay Kismaayo oo ku yiri Ahmed Midoobe laga bilaabo saacadan madaxweynaha tahay. maxaa markaas dadka Jubbaland maxay galabsadeen su-aashaas dowladda ayaan u jeedinaya caalamka. midda kale waa maanta sidaa ujeedin barnaamijkii meeshaas oo ku qoran yahay waa loo yeelay. waxaa dhiman 4 bilood sida haddii oo qaabkii haddii oo lagu fadhiyo oo 3 iikeen midaan la baha muddadiisa waxaa agoosto ayay ku dambaysaa. agoosto kadib ma haddana dowladda sidaas ma inagu dhaafaysaa, caalamkii ma sidaas nagu dhaafaya? waa su-aal kale aan leeyahay dowladda iyo caalamkaba oo ay leeyihiin cadaalad baan ku shaqaynaa, sinaan baan ku shaqaynaa, Soomaali inay xurnimo ahaato aan ku shaqaynayaa. saas ayay ku taageereen, dowladdana saas ayay ku taageereen. dadkiina maalin kasto dil iyo barakicin iyo maxaa la yidhahdaa boob hantidooda lagu haaya.
inta badanna waxay ka baxeen dadka intii mudnaa oo wax qaban lahaa oo dalka deegaankaas wax u qaban lahaa waa kuwa hadda qaxootiga ku joogaan qaar ka mid ay soo qaheen gobollada kale ay ku degan yihiin inta badanna maanta waa inta hadda ay fadhido duhurka marka waxaan su-aashaasaan leeyahay haddii 4 bilood la dhammaayo ma sidaasay ku soconaynaa mise wax ka duwanaan la arki doono taas waxaan leeyahay marka reer Jubbaland aan usoo noqon reer Jubbaland wax oo gadaashin jira ma jiro ilaahay ka sokow ilaahay aan halo uskiro quraanka hala badiyo dadaalka hala badiyo sida dadka Jubbaland degan lagu horeyn lahaa dhibka looga saari lahaa idinka ayaa idin fadhiya haddaad tihiin ulama udiinka haddaad tihiin aqoon-yahanka haddaad tihiin maxaa la yidhaahdaa dhaqankii haddaad tihiin siyaasiyiintii ilaahay ha loo noqdo ha la midoobo sidii dulmigaas oo laisku raacay maal caalamkuna isku raacay mar dowladeennana isku raaceen sidaan iskaga dhicin lahayn wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu